haddii ciwaankaaga Facebook aad rabto inaad page ka dhigto halkan ayaad ka bedelaysaa. haddii page-kaaga classic uu yahay page-kaaga classic uu yahay aad rabto inaad profile ka dhigtana waxaad ka bedelaysaa waa halkan. haddii page-kaaga classic uu yahay aad rabto inaad haddii page-kaaga intro uu yahay aad rabto inaad classic ka dhigto ama experience ka dhigto waxaad ka bedelaysaa switch classic to page. Okay, ina ila socotaa. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنو ونكسن أصحاب تغالية ولا لها قلبية ولالكيني وويلكيني وصاحبكيني وهذا نينكي دبلوغا اسكدك فبدنا عبد الله إلانو جلال كداونا سوا غلير ميديا لحد محان كو وضعاو. أنا سهر ugu sheegay waxa waaye dadka waxaan hadba la socdaa macnaha ama aan tixgeliya codsiyada saaxiibadeeda ku xiran janaalkayga ay janaalka kaliya ma ahan علشان application kasto markaas aniga aan isticmaalayo asxaabta friendskiga la TikTok ha ahaado Facebook ha ahaado WhatsApp ha ahaado Instagram ha ahaado Telegram saaxiibada ku xiran dhamaantooda waxaan u tixgeliyaa codsiyadooda ama waxyaabaha ay su'aal iga soo weydiiyaan hadba intii aan garanaya ama aan ilaahay uu iga fahansiiyay waxaan jeclahay in aan la wadaago walaalahayga isoo weydiiyay intii aan awoodo. marka muuqaalkani waxaan rabaa inaan kugula wadaago ama aan uga jawaabo codsiga dad badan oo soo weydiiyay su'aasha ah page-kayga classic-ga aan oga dhigaa profile waa kow. sidee profile-kayga Facebook aan oga dhigaa page profile page markaasi classic ama page caadi ah waa hadda way profile-kaaga oo caadiga ah isticmaasho ciwaankaaga caadiga ah profile inaan fahmina laga yaabaa ciwaankaaga caadiga Facebook sidee page oga dhigi kartaa waa kula wadaaga lambar kow. lambar labo waxa waaye classic page ama page-ka caadiga ah page-ka caadiga la sameeysto ah sidee oga dhigi karaa experience ama page-ka khibradda ama intro page sideen oga dhigi karaa page-ka oo markaasi oo hadeertaan maadaama Facebook 2022 laga dhigay update waxaa jirto caqabado dadka ka haysto sida adminka loo saaro sida adminka waa idin la wadaaga midda kale macluumaad kale aan kula wadaaga waxay tahay ogow haddii page-kaaga profile uu yahay saaxiibo badan ma helaysid waayo inta badan dadka page profile-ka ah haddii page-kaaga classic uu yahay invite haddii aad u dirto waxaa laga yaabaa 5,000 oo qofood inaad invite u diri kartid laakiin haddii page-kaaga classic uu yahay 1,000 qofood ayaa kaliya ayaad invite u diri kartaa. marka taas ayadoo jirto marka si markaasi page-kaaga asar u qaato ama grow up ugu sameeyo oo kor u kac u sameeyo xagga follow iyo like-ta taasna waa kula wadaagi doonaa. marka aan u gudagalna muuqaalka awalan marka ugu horeyso marka soo furo maxay ahayd application la yiraahdo Google Chrome-ka Google Chrome-ka soo furo okay ina ila socota ayaa rajeynaa. Google Chrome-ka ayaa soo furtay okay maxaan sameeyaa marka halkan waxaan ku qorayaa facebook.com okay facebook.com markaan dhaho profile-kaygu soo saaraa kulli haddii adiga oo load in uu ku yahay ama aad ka maqan tahay ama aad browser ku isticmaali kulli browser-ka soo gal ina browser-ka soo gashaan ku rajeynaa okay marka kulli waa kana waa joogaani hadda mar hore ugu diyaarsanay oo mar walba ay kaacsan yahay oo meeshan ay ugu diyaarsan yahay Facebook-kayga. marka waxaan rabaa marka inaan ku tuso qaabkii aad marka haddii page-kaaga oo experience UI classic uga dhigi lahayd muuqaalka mid ugu horeeya aan ku bilaabay waxa waaye qaybta ugu horeyso inkastoo meelo badan isku wada mid ka yihiin laakiin dhammaantood horta waa isku wada mid oo hal meel laga wada bedelaa. marka halkan muuqaal ayaa halkan meel oo hadda halka option hadda aan rabo option-ka aan rabo oo hadda aan sameynayo ayaa ku
ku fahmi doontaa kolley dhexdiisana kugu dhex sharxi doonaa. ila soco ha iga degdegin muuqaalka ilaa dhammaadka inaad la socoto isku day, waxa iska qaldin si deganaana maarata ula soco. kolley waa bilaabi doonaa. bismillaah. waxaan joognaa marka meeshaan markaan joogno pagekii waa kana pagekan hadda waa experience. pagekan waa page experience ah. marka pagekan markuu page experience yahay waxaad halkan ka arki kartaa kolley macluumaadkiisa, informationkiisa, xogtiisa, wixiisa dhan halkan ka arki kartaa. marka macluumaadkiisa wixiisa dhan halkan ka arki kartaa. markuu saan yahay, markuu saan uu yahay oo aad halkan joogto, waxaad rabtaa marka pagekaaga inaad ka dhigto page classic ah. classic page kan hadda waa experience, waa sidaan kuusoo sheegay kolley waa experience. waxaad rabtaa inaad ka dhigto page classic. markaasaan pageka u joogto, pagekan hadda waa aragtaa waxaa ku xiran kun qofood, kun like iyo kun subscribe, kun follow haystaa, kun like iyo kun follow haystaa. waa page experience waaye, maadaama shabakadda Facebook ee update ku sameysay experience-gaas ka wada dhigtay. marka sida facebookii hore ama pagekii hore oo classic ahaa, si aad dib ugu celiso oo markaasi invite-ka aad direyso kunkan hadeertaan ay ku base gareeyeen aad uga badato 5,000 oo qofood hal mar invite aad ugu diri karto, si aad uga dhigato waxaad sameynaysaa meeshaani oo 3 dhibcood ah ayaad tegeysaa. meeshaan 3 dhibcood ayaad tegeysaa. meeshaan 3 dhibcood waxaad tegeysaa. meeshaan 3 dhibcood ah meesha 3 dhibcood ah calaamadda ku saaran ayaad tegeysaa. waad taabanaysaa. markaad taabato waxaad ka dooranaysaa halkan ayaad ka dooranaysaa oo ah switch to classic page. waa aragtaa kolley profileka haddii profilekaaga Facebook uu yahay ama ciwaankaaga Facebook hadduu yahana halkan aad ka bedeleysaa. haddaba ila soco, haddii ciwaankaaga Facebook aad rabto inaad page ka dhigto halkan ayaad ka bedeleysaa. haddii pagekaaga classic uu yahay aad rabto inaad profile ka dhigtana waxaad ka bedeleysaa waa halkan. haddii pagekaaga classic uu yahay aad rabto inaad haddii pagekaaga intro uu yahay aad rabto inaad classic ka dhigto ama experience ka dhigto waxaad ka bedeleysaa switch classic to page. inay la socotaa rajeynaa. intaasi faahfaahin waa kugu filan tahay kolley. marka meeshaan ayaan taabanayaa. wuxuu ii soo qorayaa halkan karaal ahaada qadka xogaa yar culus. marka waxaa sameynaysaa halkan meeshaan oo ay ku qoran tahay understand, waxaa sameynaysaa dhibic ayaa saareysaa. dhibic markaad saarto confirm ayaad leedahay ama continue ayaad leedahay oo continuous ayaad taabanaysaa. continue ayaad leedahay. waxaad sameynaysaa marka halka haddana mar labaad su-aalo halkan kugu weydiinaya, su-aalaha iska dhaaf, waxba ha u bixin. continue kaleeta ayaad dhehaysaa. continue kale markaad tiraahdo halkan haddana ayuu ku keenayaa. markuu halkan ku keeno haddana waxaad leedahay mar kaleeto continue ayaad leedahay. wuxuu marka halkani qoraaladan iska akhri kolley maarata waxbaa ka fahmi doontaa. wuxuu leeyahay maarata isaga pagekaaga waxaad u bedeleysaa classic. ogow haddaba micnaha la soco. marka waxaad sameynaysaa haddana meeshaan switch back ayaad taabanaysaa. continue ayaad leedahay. marka intaasi dhameyso waad aragtaa hadda hadaatay waxaad arkaysay calaashaan
bejka facebooka falowgiisa waa arkaysa iyo laagtiisa waa arkaysa, laakiin hadda falowgiisa iyo falowdiisa iyo ma arki kartid iyo laagtiisa ma arki kartid. Falowdiisa iyo laagtiisa ma arki kartid. Waa kana oo waxaan ka dhignay profile aan dhigna profile markii hore ahay ama experience uu ahay, laakiin hadda waxaan ka dhignay classic. keliya hadda markii aad rabto inaad ogaato falowdiisa inta imise qofood ayaa falow u ah, imise qofood ayaa markaasi laag iga saaran tahay, waxaad ka ogaanaysaa halkan oo maaragta ku qoran halkan about ayaa taabanaysaa. waa kana page-kii wuxuu noqday page classic ah, classic page. Okay, inaad fahanteen ayaan rajeynayaa. haddii aniga waa kana saana ila shaqeeyaa asxaabay saaxiibadeyda qaaliga walaalahayga qaaliga, aniga waxa waaye codsigiina had iyo jeer waxaan jeclaa inaan ka soo jawaabo, idinkuna igula dadaala sida maaragta aan halka sare aan u gaari lahaa, meesha sare aan u gaari lahay. waayo aniga maaragta waxaan jeclahay inta yarta ah oo lisoo weydiiyo inta cilmigayga ama ani oo aan ka fahamsana cilmi ma ahaba aqoon zaa'id amaliyan aqoon maliye لا علمي أنا زياديو ما أعرف، لكن أقول مليه أنيقا nin iska bowsanahay. marka inta yarta aan fahansanahay oo qof walaala isu weydiiyo waxaan jeclahay mar waliba in aan ku taageero ama aan ka caawiyo. marka muuqaalka xigo haddii la yiraahdo dadka ka soo jawaaba oo classic u noqdo, dadka kaleeto oo profile-ka u baahdo ayaguna haddii ay garan waayaan kale qaybta comment-ga ay ula wadaagaano. Telegram-kana maaragta linkii qaybta hoose soo dhigayaa. saaxiibada qaaliga marka waxaan leeyahay haddee guul wacan insha allahu, kulanti dambe oo xiiso leh. muuqaalkana like saar haddii aad ka heshay, siina share garee, lana wadaag asxaabtaada qaaliga ah. muuqaalkan like-ta ka hilmaamin, haddii ay tahay markii kugu horeyso booqashadana muuqaalka like saar. salaaman haddee. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. jaw